السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها يوميلا جوجتان بوايدين سلامي مانتا وحان كجوابينا إن شاء الله تعالى سؤال مالمهن آدو بدن تاسو عذر كان دلاغا كورونا فايروس إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تاكوذا بدبادي ميلا جوجنبا هدي قف وكل مسلمة ودنتو مسيلا يليا ملدقيا مسوال اسكا آسيا marka masaladaas oo maalmahan aad su'aasheed u badan tahay meel walbana laga weydiin aan rajaynayo culimadeena Soomaaliyeed ee waaweyn Ilaahay khayr ha siinay ka wada hadlaan hadii Allah idmo baan rabaa inaan albaabkeeda waxoogaa sii furo horta qofku markuu dhinto jumhuurul ulama waxay isku wada waafaqsan yihiin in la dhaqaa inay tahay waajib inay tahay fardkaasna waa kifaay waxaa la yiraahdaa dadka qaar haday la yimaadaan intii kalena dambigu ka dhacaya laakiin bisharti waa inaan wax maanica oo diida in la dhaqo ayna meesha joogin waxyaabaha maanica waxaa kamid ah inuu qofku gubto oo kale oo biyihiiba uu qaban waayo waxaa kamid ah in cudurrada gudba oo kale sida cudurkan coronavirus oo kale uu qofka hayo oo loo baqayo qofkii dhaqayay inuu u gudbo cudurku markaas culimadu waxay yiraahdeen haday suura gali weydo in la dhaqo waxa imanaya in biyo lagu shuba kaliya toon waxba gacanta la marinin haday suura gali weydo biyaha in lagu shubana waa loo tayammum baa loo sameeynaayaa oo tayammumku bedel wuxuu ka noqdaa isaguna biyihiibu ka noqdaa hadii intuba suura gali waayaan culimada qaar baa waxay leeyihiin tayammumku masalada in la dhaqaayo waxay in la nadiifiyo qofka dhintay laakiin hadii nadaafadii ayna meesha joogin waxba tayammum la aadi maayo waa la iska qofka intii la kanfo ayaa la iska aasaya hadaba mucaasiriinta ahlu cilmiga qaarkood waxay ku tageen hadii ay suura gal noqon weydo in qofkii la dhaqo jirooyinkan gudbaya dartood loona baqayo ruuxa isaga oo dhaqi lahaa loo baqayo inay noqonayso in la iska aaso yusalla alayhi wa lagu tukan min ghayri ghuslin wala tayammum isagoo on la dhaqin lana tayammumna la sameeynin ayaa intii lagu tukado ayaa la aasaya iyadoo oo la qaadanayo ijraa'aad iyo wax alla wixii suuragal ahaa oo dadkii loo tababaray iyo dharkii loogu talagalay dadka waqaayiga ay qabi lahaayeen oo dhan la sameeyo hadii adkeeyaan dadka khubarada ah oo atibada ah oo caafimaadka hawshan ku takhasusay inay khatar ay tahay in la dhaqo qofkan maradka oo jiradan ay ku dhacday oo kale fayudfanu almusab ruuxa isaga waa la aasaya wayusalla alayhi waana lagu tukanaya maxaa jira waxa jira ad-daruratu tubihu al-mahdhurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha shayga xaaraanta ahaa hadii ay dhibaato ay timaado way banaa qofka in la dhaqaba waajib noqonaysa laakiin hadii qofkii su'aashu waxay noqonaysaa kan nool in la badbaadiyo miya haboon mise kan dhintay in waajibkiisi la fuliyaba yaa imaanaysa fattaqullaha mastata'tum wixii intaad awoodaan Allah ka baqabu rabbi in leeyahay mid labaadna rasuulku wuxuu yiraahdaa hadan arin idin amro wixii aad awoodaan kala imaada arinka isaga ee leedin amray hadaba qofkan hadday arintu sida uu dhacdo wal xaalatu haadihi waxa lagu kaaftoomayaa in la kanfo mara uun lagu duubo kadibna lagu tukado kadibna la aaso waa hadii ay cadeeyaan dadka ikhtisaaska umurtan ku shaqale oo caafimaadkiihi taabashadiisa iyo dhaqidiisuba inuu cudurkani u gudbaayo qofka kale oo hawshan sameyn lahaa intaas lagu kaaftoomi waxa loo rajaynayaa dadka cudurkan coronavirus ku dhinta insha Allah ee muslimiintihi inay shuhada noqdaan ilaahina subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu muslimiinta meel ay joogaanba uu badbaadiyo jiradan inaga wada badbaadiyo wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh